بسم الله الرحمن الرحيم ولو waxaynu ku jirnaa barashada maadada xisaabta fasalka 12aad maantana waxaan soo gaarnay chapterka 3aad ee maadada xisaabta ee loo yaqaano probability ihtimaal. Definition to probability waa maxay qeexitaanka ihtimaalka ama probability-ga. Probability-ga wuxuu leeyahay qeexitaano fara badan laakiin hadda waxay noo qoran laba qeexitaan. Tan koowaad waxay tahay probability is a chance that something will happen. Probability-ga ama ihtimaalka waa fursadda shay uu ku dhici karo. Is a chance that something will happen. Waa fursadda shay uu ku dhici karo ayaa waxaa loo yaqaanaa probability. qeexitaanka labaadna waxay noo qoran probability is the measure of likelihood of an event happening. Probability-gana waa cabirka ihtimaalka dhacdo dhacayso. وعبرك احتمال كدعضو دحيسو ayaa waxa loo yaqaanaa probability. inta badan probability-ga waxa uu ka hadlaa waxay tahay waa waxyaabo la saadaalinayo. Ciwaan ku xiga waxa loo yaqaanaa random experiments. waa maxay random experiments? Random experiment is one for which the outcome is uncertain. waxaa loo yaqaanaa waa mid ka mid ah outcome ka soo baxayo ama natiijada soo baxayso haddana aan la hubin waxay noqon doonto. sababtoo ah waa uncertain, lama hubo waxay noqon doonaan. tusaale random experiments-ka tusaale waxa inoo ah halkan waxa inoo saaran waa cambe, tufaax iyo liin. saddexdan midkood haddii lagu soo rido halkan oo lambar 1 aan ka bilaabo wax loo yaqaan mango, lambar 2 haddana aan ku xijiyo wax loo yaqaan lemon, lambar 3 haddana aan ku xijiyo wax loo yaqaan apple ama tufaaxa. saddexdan haddii aan ku soo rido meel hadday noqon lahayd salad kadibna lagu yiraahdo hal xaba kala soo bax adigoo aan arkaynin, shaqada aad samaysay ayaa waxaa loo yaqaanaa random experiment. sababtoo ah shaqadan waxa uu qabatay si ashwaaci ah. marka shaqada qabatay waxay tahay ma waxa la soo bixi doontaa mango, ma waxa la soo bixi doontaa lemon, ma waxa la soo bixi doontaa apple, midna ma garanaysid. marka maadaama aadan garanayn waxa la soo bixi doonto, shaqadan qabatay outcome ka soo baxay ayaa waxa loo yaqaanaa random experiment. ciwaankana waxa loo yaqaanaa sample space. waa maxay sample space? The sample space is the set of all possible outcomes of an experiment. waa dhammaan experiments-ka output ka soo bixi kara oo dhan ayaa waxaa la yiraahdaa sample space. tusaale waxa inoo ah halkan waxa inoo saaran waa corn, shilinkan sample space-kiisa shilinkan wuxuu ka kooban yahay laba qaybood, head oo madax ah ama til oo ah xarash. marka sample space-ka koonkan ama shilinkan waa laba oo ah ama inuu u dhaco madax ama inuu u dhaco xarash. marka sample space-ka koonkan wuxuu noqonayaa h, t. sababtoo ah madax iyo xarash wax ka badan uma dhici karo, wax ka yarna uma dhici karo. marka sample space-ka experiments-ka la sameeyay wuxuu noqonayaa inuu u dhaco koonkan inuu u dhaco madax ama xarash. tusaalaha labaad halkan waxa inoo qoran waxay tahay waa dice ama daadhuug. daadhuugan haddii la tuuro wuxuu dhici karaa ilaa iyo 6 face. 6da face waa inuu dhacaa lambar 1, 2, 3, 4, 5 iyo 6. 6dan ka badan uma dhici karo sababtoo ah maba ku qornaba daadhuuga. lambar 7 uma dhici karo, lambar 8 uma dhici karo, lambar 9 uma dhici karo. daadhuugu wuxuu ka kooban yahay 1 ilaa 6. marka sample space-ka uu leeyahay daadhuugu waa 1 ilaa 6. ciwaanka kale noo qoran waxaa loo yaqaanaa the complementarity of an event. The complementarity of an event. The complementarity of an event is the set of outcomes which are not members of the event. The complementarity of an event-ga waxaa la yiraahdaa outcome ka soo baxayo event-ga aan ka mid ka ahayn ayaa waxaa la yiraahdaa the complementarity of an event. haddii si kalaan u dhaho shaqo la qabtay natiijada ka soo baxday
dhacdada aan ka mid ka ahayn ayaa waxaa loo yaqaanaa the complement of an event. For example, tusaale, the experiment of the throwing a 6 faces a die has a sample space. haddii la tuuro dhaadhuug wuxuu dhici karaa 6 face dhaadhuuga uu dhici karo waa the sample space ka uu leeyahay dhaadhuuga wuxuu dhici karaa lambar 1 2 3 4 5 ama 6 ka badan ma lahan dhaadhuuga wuxuu leeyahay 6 face ka badan ma yeelan karo marka 6 face ayaa waxay tahay sample space ka uu leeyahay dhaadhuuga sample space dhaadhuugu leeyahay waxay tahay waa face koowaad labaad saddexaad afaraad shanaad iyo lixaad. The event the score is a 3 or more is a tiny. haddii lagu dhaho waxaa qortaa eventiga saddexaad iyo wixii ka badan eventiga wuxuu noqon karaa marka eventiga wuxuu noqonayaa lambar 3 soo qaad 3 4 5 iyo 6. su'aashana la weydiiyay waxay ahayd waxaan soo saaraynaa eventiga saddexaad ee wixii ka badan haddii aan soo saarnay 3 ee wixii ka badan oo intaan meesha noo saarnay tahay waa maxay waxa naga maqan 2 1 iyo 2. The complement of this event is 1 and 2. marka experimentiga output ka soo baxay experimentiga la sameeyay output ka soo baxay waa intaan wixii ka soo harna waa 1 iyo 2 wixii ka soo haray oo labadana waxa loo yaqaanaa the complement of an event. cashirkeena maanta halkaas ayaan ku soo koobayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh.